saad la socotaan walaalayaal sanadkii lasoo dhaafay bilowgiisii ayaan wada hadallada bilownay dowlad goboleedyada dowladda dhexe ilaa bishii lixaad lagu seexo khayraad qaybsiga sida wax loo qaybsan doono annagoo taa ka ambaqaadayna iyaan halkan waxaan u nimid in baaritaanadii lagu sameeyey sanooyinka ugu dambeeyay badda Soomaaliya wixii ku jira iyo waxaanan ku jirin horta balaan kala ogaano intaa markaan kala ogaano kadib iyaa waqti la furi doona ciddii xiisaynaysa inay maal gashato si transparency ah oo ummaddu u dhan tahay oo la ogaan doono iyay loo soo kala caddayn doona marka walaalayaal waxaan leeyahay Soomaaliya maanta uma baahna in la yiraahdo waxaan la joojiyaa la socod sad la socotaan bashidaalka la sheegayo waxa laga yaabaa 30 sano kadib inaan adduunka laga isticmaalin oo hadda waxa la raadinayaa alternatives la raadinayaa marka baalkan la leeyahay uu ku jira wadanka iyo kuma jiro la isku hayo ilaa maalinta yar ilaa hadda la leeyahay horta balaan kala ogaano marka talabaad on ka hadlay waxay tahay xaraash waxa la xaraashaa wax la nacay waxa la xaraashaa wax duqoobay waxa la xaraashaa wax marka in la iska bedelo u baahan yahay la geeyaa shidaalka Soomaaliya xaraash ma marka la faafinayo wala xaraasha la leeyahay runtii waxaan leeyahay inta faafinaysaa walaalayaal wanaaga loo jeesto xumaa la iska daayo ummadda dhibaataysan ee dhibaatada ragaadisay ee gaajadu kow ka tahay dagaalada sokay laba ka yihiin ee waxa dul saaran yihiin iyaan rabnaa inay adduunkan intay joogto dhulkooda ka noolaadaan walaalayaal arrintaas waxaan leeyahay laga fogaado ta saddexaad waxay tahay Soomaali waxaysan u dhameyn oo isan wada wadan nin gaar oo qaadan kara malaha Soomaali waxay wada leedahay way waa wax harcad Soomaali waxay tiraahdaa xalaal maalin cad baa la qashaa wax alla waxa meeshan ka jiray waxa soo bixi doona banaanka oo la doona sidii shalayba heshiiskii aan ku gaarnay meesha la yiraahdo Baydhabo khayraad qaybsiga aan banaanka u soo dhignay marka walaalayaal waxaan leenahay Soomaaliya hamidoodu gacmaha is qabsato dalkeena waxa ku jirana aan ka noolaano ilaahay baa noo kaso nabad bismillaah aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Warsame Cabdi oo loo yaqaan Burhaan Diya Miyo waxaan ahay xubin kamid ah guddiga technicalka ah ee iskaashiga dowlad goboleedyada at the same time na xubin u ah Puntland kana mid ah guddiga wada xaajoodka ama FNTC-ga muddo hadda laga joogo sanad iyo bar ayaan hawshan ka shaqeynaynay waqti aad u tiro badan ayaa la geliyay waxa loo yeeray khubaradii caalamka dadkii ugu sareeyay ee aqoonta u lahaa sida resource-ka loo qaybsado waxbarasho badan baan arrintaa ka galnay ama ha ahaato dhaqaalaheeda ama farsamadeeda ha ahaato sidaas awgeed ma jirto annagu oo dad Soomaaliyeed in halkan London aan u nimid inaanu kaga qayb galno wax aanu ahayn waxaanu ku nimid